inkastoo aysan ahayn markii ugu horeysay oo fanaan Soomaaliyeed uu si rasmi u sheego in uu fanka ka baxay isla markaana uu cadeeyo in uu ahaa dambi uu ka toobad keenayo ayaa haddana waxaa maanta mar kale arinkaasi oo kale ku dhawaaqay fanaan caan ahaa oo lagu magacaabi jiray Faarax Siido Faarax kaasoo sheegay in guud ahaanba fanka xilligan wixii ka dambeeya uu ka fariistay toobadna uu Ilaahay weydiistay. waxaan idinku waaninaa inaad ma aragtay fanka iska dhaaftaan sida haddii aniga aan u dhaafooyo oo kale aniga hadda bis waaye fin bis waaye mar dambe fan aniga maleego arkaayo maxaa jira dhe waa soo tacbaanay fan waa soo qabtay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan ka soo qaban kara waa ka soo qabtay marka hadda waa ka toobad keenay kulligiina intii ani fanka aan soo baray iyo intii kaleba intii ana ankasaay waxaan dhihi lahay fanka inaad iska dhaaftaan ood ilaahay xaggiisa u soo naqataan marka sidaas oo kale ayaan idinkana idinku waaninayaa inaad fanka iska dhaaftiin oo ma aragtay oo ilaahay xaggiisa u soo naqatiin saliga nabiga iyo qur'aanka iyo ma aragtay cilmiga inaad barataan oo diinta islaamka ah inaad barataan ayaan idinku waaninayaa. dhanka kale qaar ka mid ah ehelada Faarax Siido Faarax ayaa waxa ay ku taageereen go'aanka uu qaatay aabahood ee ah in uu gabi ahaanba ka baxay ama uu ka fariistay fanka Soomaaliyeed oo arintan aad ugu toobad keenay alxamdulillah waxa waaye maxmuud aan soo aan jeclaan waa marka saddex arin aan ku dari lahaa maanta wixii ka dambeeyay saacada wixii ka dambeeyay dawladda laba khiyaar dhankeeda waa ama aabe hadii wax siinayso inay ku siiso wad aan ahayn fankan wad aan ahayn ku siiso hadii wax siinayso hadii san ahayn oo fankan kaliya ay ku siinayso aabe lacagtaas uma baana maanta wixii ka dambeeyay laakiin rubaantu waxa ka codsan lahay gaar ahaan idaacadaha TV-yada barnaamijyada ay qabanayaan inaysan aabe heestis ku soo dirin qofkii aragtana inuu meeshaas ku dhaafo uusan sii faafinin rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam at-tawbatu yahdim ma qablaha tawbada wixii ka horeysa way baabi'isaa wixii hor u sameeyay haduu ahaa fanaan ama jilaa ama wax kas uu sameyn jiray maanta aab waa ka toobad keenay alxamdulillah ilaahna ku arintaas ku mahadsan. Cumar Buule Tusma TV degmada Wadajir Muqdisho. taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu meel fagaaraha ku gubay qaad uu sheegay in si sharci darro ah uu ku soo galay geeyiga Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya iyadoo dhanka kalena wadooyinka magaalada Muqdisho goobihii caanka ku ahaa in lagu iibiyo qaadka sidoodii loogu iibiyo.